gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed oo ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa meedkiisa saaka laga helay xerada Sheelare oo uu deganaa sargaalkan. Eelka sargaalkan waxay sheegeen in xalay qof uu soo wacay kadibna uu labistay isagoo xirtay darajooyinka ciidanka booliska uu lahaa. Saaka ayay sheegeen eelku inay arkeen meedka sargaalkan oo yaala meel u dhow guriga uu xerada ka deganaa isagoo ka laalaca xarig u eg kan dadka lagu daldalo kursina uu hoos yaalay. Dahab Axmed waa xaaska gaashaan la dhexe Cabdi Cali Seed oo ah gaashaanlaha waxay sheegtay in xalay la soo wacay iyadoo faahfaahin guud ka bixinaysa waxyaabihii ay kala socotay xogta saygeeda. waxaan ahay marxuumka meeshaas yaalla maamadii islaantu uu qabay xaaskiisii baan ahay carruurtiisii waa kuwaana sargaal booliska buu ahaa oo gaashaan la dhexe ah meeshaan baanu deganay deegaan ku ahayn waxaana ku yorgeliyay shalay in la yiri dhulku waa la duminayaa maxaad uga bixi weysay wuxuu yiri taliyaan meelan aaday meelan aan garanayo ma jirto haddaadan bixin wuxuu yiri waan ka duminayaa dumi yiri talanshano shaqada kuma qabsanaaye waa la wacay xafiiska waxa laga wacay guud xafiiskii buu tagay waxa lagu yiri soo xukayn baa loo soo dirayaayo guddi baa loo saarinayaayo oo guriga ku laabo xalay 3 saac baan kala seexanay koortii aan seexanay 5 saac baan ka seexanay anaga koortii aan seexanayna saakadan soo baxna 2 saac bar la marayo meedkiisa waxa dhexdiisa lagu arkay ciidanku baan tusay meesha jooga waana la dilay qof isagu waalan ama wax cudur qabay midna ma uu aha qaarkoodna waxay magaalada galiyeen ninkan waa laayay mooto ay jugsiisay mooto jugsiisay way jirtaa laakiin ma waaleen wax cudurna ma uusan qabin nin reeriisa dhaqanayo shaqadiisa aadayo dantiisa yaqaan uu ahaa hadda intaasaan social media madaxdu u sheegayna madaxdu way ogtahay wax isdela ma jiraan waa lagu daba joogaa waa la soo wacay waa loo sheegay culayska jirana de ilaahay baa garan kara inta uu leeyahay marka wax isdelaada lama jiraan waa in la dilo si uu la kaca loo dilay wixii dilana waa lagu daba jiraa waa la raadinayaa isaga xalay 3 saac baa telefoon loo soo diray waxa lagu yiri waa lagu dacweynaa isagana waa la dacweynaya waa la xirayaa gurigana waa laga duminaya ilmahan waa lagu leynayaa waa la yaqaanaa يا صوّع حاضرين من مدحضة وحرة كترسم بس صوّع مركي هو رجال يجري جوري كان كجورا ياس تاعي عدة مرات لما عامليسي تالي يوصل باكو يجري والله قبل حين والله باهي مركي ساعة أركت ميتك ساعة كلا بس عبر بنار النحر ده حلو كوارد ميتك أركيس الحال نوعي كسبنا قف دلمو مايا واللي بسنا جيت كسرتي سوى اللي بسنا دريس كيس قرن كل بسن هي جيت كمية صدق كذا أصلا رئيس صاحب كحر حرن بان قيدهم كنا تصير لأن أبينا ميدا هالكاسيال لأن الكور قليل حرق كحرنا مرك حرق بلشن أنا وضيع وضريم كرتا ماما ليري نك هذه بعدين طي الماء أبوه بعدين طي ليري وضريم كرتا قلبي وضيع وحيته وحيابا جاري كرا أنا وقلبي ما نهيلين فرصة ما نهيلين وان حيته وان شوقنا وان سكسو عرفناي عيدن كم باك الأرض يوم ماشي كفرة حيته كبعدين سيدي ده إماتي صورها لقى قاضي أيها كفران حركيه أيها ماشي دقين ميتك ولي ماشي ويلا كل مدحده waa imaatay taliyada booliska waa imaaday wixii aday ku dambeey doonto wixii ka qabanayaan sharci uu ka qabanayaan ayaga garanaayo taliyada booliska mid la kulmay muxuu ha waan la kulmo oo yimid wuxuu yiri ilmahan anaga qaadanayna meedkan anaga duuganayna wixii dhacana waa laga daba tagay hadii la yiraahdo ma waxaan uga warantaa intii dilka uu dhicin ka hor wax cadaadis oo gaar ah ninka saarna ma jirin ma anaga intaan guriga ka ahayn ma jirin cadaadiska saaran wuxuu guriga la duminayo iyo guriga la yiraahdo la dumiyo lagu yiri lagu wargaliyo inuu baneeyo waan banaynayaa wiilano meelan aaday meelan ka aaday midna ma aqaano sargaal baaga mudabaan ahay laakiin waan baxayaa fursad hal ay siiyo fursadii macnaha in la siiyo la rabay ama inuu madax u tago oo dacwado la rabay taliya u laabtana falkana ku soo xigo meedkiisa waxa lagu dhaxar mid ka mid ah ehelka gaashaalaha ayaa dhankiisa warbaahinta u sheegay in ay tuhmayaan in la dilay balse aanu isdaldalin dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka dalbaday in baaris ay ku sameyso kiiskan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun magacaygu Axmed Jaamac Aadan Xalane waxa geerin naxdin la saaka waagu noogu bariyay walaalkay Cabdi Cali Seed kulan Xalane oo ah gaashaan la dhaxo biliiska ah xeradan Sheelare oo uu deganaa iyadoo ninkaas oo gariis ay ahayd mid fool xun oo ay kursi iyo hoos yaaleen maxalleeda xarigna usurka uga xirnaa ilaa haddana ma jirto cid hadii la ku reeyo noogu timid mas'uuliyiin dawladda ah waxaan ka rabnaa dawladda Soomaaliya inay marxuumka hadii la ku reeyay cid ka dambeeyay dilkiisii ay cadaaladda hor keento maxaa yeelay wadanka dawladda ka talida anagu waxaan nahay shacabkii dawladda cashuurana la ka qaadaa asagu wuxuu ahaa sarkaal dawladda ka mid ah qof ka mid ah dadka dariska ayaa iyana waxay ka xog waramaysaa
maalmihii dambe warar soo baxay oo sheegay in la amray in xerada isaga guuraan dadka degan dariska ugu dhawaan ahaa wadaadkan dhimanaya annaga habeen hore ayaa odayaashayada lala soo hadlo waxa la yiri shaqada ayaad ku weynaysaan hadii aadnan meesha iska guuran oo caruurta aadnan raran ma fahamta adiga bis shala subax weyna rareen odayaashayadiina rareen asagoo nabad qabo caafimaad qabo halka fadhiya gurigiisa iridiisa aniga qof iiga aragti dambeysay ma jirto anigaygan halkaas uu fadhiyay markaan gaariga halka kala baxay wax cudur iyo wax balaayana ma qabin marxuumka dhintay hadda wax iiga dambeeyay ma aqaan kullayba wixii jira waa la baari doonaayo idinka isku maqan iyo saxaafadda iyo madaxdu way isku maqan yihiin ma garata adiga xarunta dami baaris CID-da ayaa loo qaaday meedka gaashaanla dhexe Cabdi Cali Seed ciidanka amnigu ma jiro wax war ka soo baxay oo ay ku faahfaahinayaan kiiska ninkan ehelku waxay sheegayaan in la dilay saacadii la soo dhaafay baraha bulshada waxaa ku baahayay sawirkiisa oo u muuqda qof la daldalay ama ka soo lalaca geed xarig lagu xiray kursina hoosyaal waxaan jirin ilaa imika war rasmi ah oo xaqiijinaya in gaashaanla dhexe Cabdi Cali Seed uu isdaldalay iyo in la dilay